maanta barnaamij ma wado sidaad ogtihiin ba film baa ii socda oon waqti ku bixinayaa filimkaasna insha Allah wuu soo gaari doonaa haddii uu Ilaahay yiraahdo waxaan arkayay in wiil yar ma aqaan aniga wax daba dhigay like adiga dabcan qof hadaa aragtid aadan adiga waqti u haynin ee ku daba taagan ee waxa soo qaadanaya ee magacaygu film boor sameeyay amal film la fiirsanayo ma aragtid remote TV amal oo magacaygu ku soo ceshanaya amarkii sikay marka qof magacaaga ku soo Soomaalidu waxay tiraahdaa dhariga karka waxa ka keena kuleelka marka isaga inuu magacaygu ku soo ceshto attention ka raadiyo aniga maba sameynbe maxaa asoo ku kalifay in magacayga uu soo qaado taasna iska dabageenayna markaad okay wiilka yar wuxuu sheegay wiil yarna ma dhigi kara shaarbiisa intaas ka soo baxay inay afka u galeen adoogan waxaan leeyahay wiilkan yar aniga wuxuu ii soo qaatay video aniga aan leeyahay uu leeyahay ninkan 2014 uu soo galay maxaa lahaa ii sheeg maxaa la yiraahdaa anigu wuxuu leeyahay dumarka curadooda waxa ka sheekaysaa adiga hal su'aal aan ku weydiinaa adiga YouTube wajiga ku soo gashay muxuu ahaa adoo professor ma soo galin adoo comedy sameynaya ma soo galin waxa soo gashay qof hooyadaayo kala adoo le waa wareysana wariimatid okay waa ku yeelay waa wareysana mahano maxaa weydiisay marka waxyaaba weydiinaysa maxay ahayd qofkana magaceeda waxa la yiraahdaa maama malyuun ma ahan farxiyo yiriisay maama malyuun waa hooyo waxa weydiinaysid maxay yihiin marka qof hooyada oo kala ayaa waxa weydiinaysaa meeqanina ku soo furay 10 nin baa ku soo furay inaa noo sheegtay sidee kala ahaayeen qaar sariirta ma ku fiicnaayeen midda kale waxaad tiraahdaa nimanka noocaasa sariirta waa ka daalayn sidaana sariirta loo sameeyaa hal su'aal ku weydiinaa marka hadiiba qof maama ah oo maama malyuun la wada yaqaano aniga dhali karto adiga ku dhali karto aad su'aalahaas public ku weydiisay aad YouTube soo gelinaysaa lacag ugu raadinaysid hooyada wali ma weydiisay aabaha ka hor intuu soo guursan meeqanina soo martay hadartu waa weydiinay because waxa tahay nin bila tarbiyada oo anagoo intaasoo qof ah public intuu la soo dhex fariistay maamo hooyo ah weydiinayo meeqanin aan ku soo furay nimankii noocay ahaayeen sariirta sidee ku ahaayeen arimaha xagga hoose macnaha wuxuu ka wadaa xubinta taranka ee dumarka iyo tii ragaba uu iyada weydiina haddaba marka dabcan adiga hooyada waa soo weydiin jirta ilaa waxa tahay nin public qof hooyadiis oo kala waxaas ku dhex weydiinaya walba haday iyada la hadlaysa taqaana maxay ka dhibi lahayd waa qof maamo iska ah dabcan qurbahan la joogo iska ogtaa iska dhib badan yahay oo life intee soo gashay kulay wixii maaragtay iyada u geystaba iyada iska la arimaheeda qof kasta naftiisa Ilaahay ku xisaabtama Ilaahay la daba ma weydiinaa maanta yawm al-aakhira iyo maaragtay adduunba Ilaahay la socdo ee qoray maraayaa galbiisa saaran qof shaqo ku leh wuxuu qabanayo ma jiro qof kasta qumaniisa qorto u suran haddaba adiga adoon lagu dirin aad qof hooyada leeg iyada social media waxa soo dhigato aad amal ka dhigatay isla si fiican yahay 4 saacadood baan ku bixiyaa qolaa wareysigeeda waaba noo sii sheegay misciibsanaysa taa in yar misciibsanaysid qof hooyada leeg inaad ku tiraado nimanka ku soo maray sidee wax macnaha dumarka sariirta qaabkay ku yeeli jireen hooyada adoo weydiinaya la mid tahay dasmeen so wuxuu yiri ninkan 2014 uu YouTube ku soo biiray aniga hadda soo galay baa maxay ka badan sidanka aniga intaadan adiga iska daayay maama malyuunta hooyada ah aad sheegaysid iyo dabacasaarka aad soo qaadatid wixiisa la baranin ayaan waxaan lahaa Facebook page oo halkaas dadka aan ka maaweelin jiray wajigan ku soo aanbaxayna wuxuu ahaa short films aan comedy ka sameyn jiray iyo wacyigelinba waxay doonaan ha ahaadaan adiga waxa lagu bartay goordhow waxa lagu bartayna dabacasaar imaam malyuun dabacasaar khadku ka baxay waa la waayay Facebook iyo YouTube ka adoo kale malaa u nacay iska tagay maam malyuun dhowr video ee janaalkaada ka saartay sida awgeed videoyadeeda faraha ka qaatay oo waxa ogaatay hadaa video ka soo gelisay inay ka saari karto marka labadeena qofka wuxuu sheegay waayay ee fanaaniinta yiri reaction waa iska qoslaa marka la ituso noocaan oo la dhahayo la ii soo diro fanaan hebel oo reaction ka bixina maba qosli kariyabe waxa reaction bixiyo qof dad qosl ka keeni karo maba qosli karabe
hadda ninkan wuxuu raadinayaa in magaciisa ani afkayga aan ka sheego waxaad hadda labada video usoo duubtay aad silaca u maraysid waxaa rabtaa miya in magacaaga afkayga aan ka sheego no aniga magacaaga afkayga kama sheegahay no marnaba taasa iga sugin intaa u dhimanaysid intaada waay marka hal mid aan kaa codsanaa maadaama magacayga ilaahay weyneeyey tiim falaqna ay weynaysteen kin ck afkaaga markuu kasoo baxaayo waa ku baryaa iga soo caday afka anaad u malaysid boosaneer la gadiyey ma haysta miya colgate war ii dhiiba colgate ii dhiiba so waxaan kaa codsanayaa please shaarba weyne waxaa kaa codsanaa maadaama aniga magacayga kin ck afkaaga uu kasoo baxaayo ama cumar kirish please waa ku tuugaa iga soo cadayso waa ku tuugaa marka magacayga afkaaga aad soo marinaysid kuwaan iska soo iloobin midda kale shaarbahan aad u malaysid kuwa Hitler ee afka kaa galaya iga soo xiir shaarbahan nin dhan oo la wada yaqaano ee kaa magac sareeyaad rabtid inaad ku dayatid aad kuwa bigaraysid marka magaciisa afkaaga ka soo baxaya please don't forget hal su'aal inaan idinkaga tago aniga 2014 ayaan ku soo biiray social media in aan sidaan oo kale dad hortooda usoo istaago waxaana ka soo galay Facebook page Cumar Kirish iyo Laabta Group waa kan intaasoo live maraya kadib waxaan usoo batay dhanka YouTube-ka barnaamij la yiraahdo Somali Got Talent 2017 ilaa 2016 dabayaaqadeedii ayaan bilaabay aniga iyo laba wiil oo kale Yacka bin Ciise iyo Daadira taqaanaan halkan ayaan ka bilaabay YouTube inaan xoog soo saaro marka mid aan weydiina adiga 2014 markii aniga page-kan aan sameynayay ee ahaa Cumar Kirish iyo Laabta Group ee dadka aan ka qosinay shaati iskama bedelo adiga intaad jirta intee joogtay waqtigaas ma sheegi kartaa shaati iskama bedele okay ugu dambeyntii wiilkan yar waxaan u sheegayaa adiga maama milyuun suuqeedii markuu ka soo xirmay dabacasaarna uu iska dhaafay Facebook live inuu soo galo ilaa labadooda fiidiyoyadooda live-kooda inta soo jarjarto aad ka raadin jirtay ficil amaba views haddaba labadii suuqa way ka saareen danta waxay ku baday marka inaad tiraado ck shaqadiisi aan sameynaa inaad tiraado fanaaniinta la kaftama fanaaniinta waa Soomaali adna Soomaaliya tahay waa la kaftami kartaa aniga ma diidani shaqadeedana maaha laakiin tajirtaa waxay tahay meeshan talent yaa isku dhaafay abooninka war badan maalka habartaa oo kula qaybsaday dhaan reexa marka adiga waxaan ku weydiinaa waxaa tiri koobi cadad oo daabraa fanaanad Nadiir Neerus iyo Shaadi Sharaf aan waxaan ka sameey jiray kaftan maxay fanka ku joogan magaca falaqna cid kastaan baray janaalada labadeena naga waaweyn ee Soomaalida heesaha soo galiya ayaa ciwaan ka soo dhiganooya video noocaas heesebel falaq anaa gaday adiga marka falooga xitaa tiri faloog muu yaqaanaa ninkaas tiri faloog waxa sameeya nin af Soomaali badan nin hadlaaya adim hadda ka taawt af Soomaaliga baad kugu yarbee af Soomaaliga waay luqad kale ma af Soomaaliga ku dhibaay marka mid kaliya anigu ku leeyahay waxa taa hadii koobi jiro adaa koobi wado cid kasta way u jeedaa koobi garee ma diidani aniga hadaa jeceshahay if you want to be like ck waa ku ogolaa hal mid laakiin afkaaniyo boosaneerka Hitler camal oo ura bahasha iyada ahayd markaad magacayga markaa soo marinaysa kin ck cadayga iska iloobin hadii kale adreeskaaga ii soo dir baabuur cadayaan ku soo dira shaarba weyn shaati iska bedelay jaw u kaadi intaan tagin adiga waxa uu dhimanaysid ck in magacaagu afka soo mareemaya no hal mid asxaan kugu falaa oo afkayga aan ka soo bixinaa kaasoo ah shaati iska bedele